muddadii shirkii hore oo berbera iyo u dhaxaysay shirkan dambena dagaalaa dhacay oo qolada garxajis baa weerar nagu soo qaadi jirtay xagga dhulbahantaa iyo xagga marka waxaan u haysanay dee oo meelo badan bay soo galeen berigii waxaan u haysanay inay macnihii colaadihii hore dhacay inay revenge argoosi ka wadaan laakiin markii dambe burco waxaanu ogaanay inayba ka horjeedeen arrintan in la isugu yimaado oo in fikirkan cabdiraxmaan iyo ka dambeeyay waayo markii dambe waxaanu ogaanay adigu aan xuseen baadbaanay waxaanu ogaanay in meesha la yiraahdo aydiidiya ay ku shireen nikala oran jiray cabdiraxmaan tuur iyo mustaxiil inay heshiis ku soo galeen in markay dalka qabsadaan labada ciidan ku kulmaan gaalkacayo kabacdina ay dawlad labadood ka dhaxaysa dalka ka wada dhistaan dad wastabalaan marka iyagu waxay rabeen in colaadu sii socoto laakiin qolada habar jeclo iyo hor joogsaday arrinta oo hubkii badiba hubkii burca lagaga yimid oo isagoo iska ladabadii wixii ka soo dareereen iyo kii hargeysana qolada habar jeclo iyo qolada habar walba majority-giisa qabsatay hubka marka iyagana goosiga hormoodka ahaa muddadii shirkii hore oo berbera iyo u dhaxaysay shirkan dambena dagaalaa dhacay oo qolada garxajis baa weerar nagu soo qaadi jirtay xagga dhulbahantaa iyo xagga marka waxaan u haysanay dee oo meelo badan bay soo galeen berigii waxaan u haysanay inay macnihii colaadihii hore dhacay inay revenge argoosi ka wadaan laakiin markii dambe burco waxaanu ogaanay inayba ka horjeedeen arrintan in la isugu yimaado oo in fikirkan cabdiraxmaan iyo ka dambeeyay waayo markii dambe waxaanu ogaanay adigu aan xuseen baadbaanay waxaanu ogaanay in meesha la yiraahdo aydiidiya ay ku shireen nikala oran jiray cabdiraxmaan tuur iyo mustaxiil hadda markii dambe oo go'aanka lagu dhawaaqay weli qolada habar yoonis dagaal bay wadeen oo 23kii ma iyo bay weerar ku soo qaadeen dama la xagriyo halka oo dagaal ka dhacay dagaalkii kaayo isugu dambeeyay baa dhacay 23kii marka sheekada ah Somaliland shirkii burco ayaa lagu go'aansaday in la goobaano loo dhamaa maxaad ku qeexi kartaa waxba looma dhameyn jawr bay ahayd iyo qorqabasho anihi international looga iyo islamic looga iyo meelna qof la haysta ahi hadda hadduu wax saxeexo hadii jeer waxaan arkaa document yaroo aad moodi forge document oo ay magaceeda isimada ay ku qoraan oo qaab daran u qoran oo ay leeyihiin waxba la saxeexay laakiin waxaasi ma dhicin waxa madda ma sameeyeen way laakiin even haday saxeexi lahaayeen dee wax legality oo sharciyana qof qori dhafoorka laga haya waxa weeye sharciga adduunka wax ka socda ma aha waxaanina jawrkaas u ahaa iyo wax caadifada waliba niman dambe oo ka tirsanaa SN markii dambe cabdiraxmaan waa cadeeyay isagoo waatu xamar ka digay ilaa waqtiyo dhaweyd rag badan oo golihii raggii SNM ee dagaalamay ka mid ahaa ayaa cadeeyay fikirkani inaanu balaanka SNM ku jirin waxay sheegeen rag qaybtood dawladda siyaad bari la shaqeynayay ila to the end la joogeen oo markii dambe la kala qaxay xamar laga soo qaxay waqooyiga yimi iyo dad xagga deegaana oo qorshaha ku jirin inay yihiin dadka kiciyay oo fikirkan caadifada ay nu qoosano geliyay laakiin se nimankii halgamayaasha ahayo soo dagaalamay wrong or right waxay doonaan ku dagaalamayeen macni fikirkan ma wadan waa laga yaabaa qaybtood inay ku raacday laakiin conceptku waxay yiraahdeen dadkii xagga ka yimi baa arrinta dadka geliyay tamarar badan oo baraha bulshada ku jirta iyagoo ka hadlaya arrinta 33 sano ka hor bay ahayd markaas heshiiskaas burco ama qorqabadkaas burco si kastaba loo dhigo ma shaqeeyay markii laga soo noqday aanu ka nimi yaanu dhulkii ku noqonay heshiisyo beelaadyo baa jiray dhaxmaray beelaha misal sanad wadeega oo lagu nabdayay ma ka horeeyay waxa lagu shiray garadag waxa lagu shiray meel la yiraahdo shimbiraale waxa lagu shiray markii dambe anigu shirbaan ka ahaa coordinator ka dhacay Yube November 91kii warsangeli iyo habar yoonis ku shiray oo lagu nabdayo waxa heshiiska qorshihiisu ahaa inaan wax political iyo siyaasadda iyo kala go iyo Soomaaliya iyo Somaliland midna laga wada hadlinaya laga wada hadlo kaliya sidii beelahan u wada noolaan lahaayeen iyo dirisnimada laga wada marka iyagana waxa la socday nin dhowr technical ah wato markii horena SNMta ka tirsanayo la oran jiray Yusuf Isaduliyar Yusuf Talaabo la oran jiray annagana nin la oran jiray Ducaale Faarax Bokor oo sarkaal ahaa saraakiishii dawladda Soomaaliya oo isna dhowr technical wataba nala socday geedhoostiisa la wada fadhiistay
dabadeedna si aan waxaanu ku niri qolada ninkii qolada Muuse Ismaaciil la Shaabir Yuusuf la socdayna waxaanu niri meel qaryar oo magaalada dooxa meesha sabarkeeda galbeedka waxaanu niri halka la joogtay gargaarada daa'iman ducaalana meel magaalada ka hooseyso dhinacaas xagga south-ka abaanu niri halkaas soo dhaafay aniga iyo iyadoo Jaafar Axmed Maxamed Saciid oo mar wuxuu ka mid ahaa gudidii doorashooyinka ee Puntland buu ka mid ahaa hadda process u degan yahay iyo aniga ayaa qaabilsanayn xiriiriyaasha shirka ahayn iyagu qolada Habar Yunis nin dhalinyaro ah bay nagu soo darsadeen saddexdeeda markaa dadka hadalka u qaybinayeen kadibna adigu shirkii oo si fiican noogu socda way gooray duhur tahay baa Yuusuf Talaabo intuu gaari soo kaxaysay gawaaridii mid soo kaxaysay qoriga ka soo furay buduuxadii ka soo gudbay oo sabarkii aanu joognay uu soo talaabay dabadna meel buu soo tagay waan u tagnay kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa inaad 5 minutes siisaan inoo duceeyo waayahay baanu niri shirkii baanu keenay cabaar buu duceeyey dabadna hadalkii buu bedelay wuxuu yiri waan ognahay inaad xagga sii eegaysaan inaad daaroodnimo idinku jirto in waxaan kaasa Somaliland waa muqaddas waa dastuur waa dawlad haddaynan ku heshiis ku ahayn shirkiina wax ka jira ma jira buu yiri kabacdi anaga baa istagnay deedinku markii hore weydiin la ducaynaya qulu yiri wax ka arrinta kale waana arrintan odayaasha ka balmansanayn aan laga wada hadlin dabeedna nin la oran jiray Maxamuud Warsamo Xagar oo curyaanka la oran jiray oo nimankii censorship-ka xamar joornaa sharaa'idka carabta iyo waxa qori jiro nin mutaqaf ah baa nagu jira oo aftahana kabacdina odagii baanu la hadalay ku xigay odagii waxaan ku yiri Maxamuud Warsamaan ka hormarinayna Maxamuudna waanu sheegay markii la isu soo noqday ayaa Maxamuud hadalkii qaatay marka laba qodob ka hadlay wuxuu yiri Yuusufow markii xamar dagaalku ka ulkamayay oo US ku soo dhawaatay baa nin sidayda curyaana baa ulkaminaya wax maalin walba halka la soo socdo halkay soo socota halkay soo marka wuxuu yiri habeenkii dama waxaan ku yiri warniyow labadeenu curyaamin baynu nahay nabadaynu wax ku nahay oo umada ku dhex joognaay haddii colaadi dhacdo oo dalku burburo la kala cararo bahal baa cid la inagu cunaye walaalu ma inaga deysid waxaanaad ulkaminaysid wuxuu igu yiri adiga daarood leetahay wuxuu yiri waxaan ku yiri daaroodnimada iyo haweenimada iyo isaaqnimadu ma aha wax waqtiyan nasiib oo kale oo intuu meel ku jiro lambar ah oo gacanta lagu qaatay waa dhalasho hadda adiga Yuusuf waxaan ku sheegayaa daaroodnimada iyo warsangeli baanu nahay harti baanu nahay daarood baanu nahay waa dhalasho adna nin isaaqa nin Habar Yunis oo isaaqa baa tahay waxa weeye waa ahaanaynaa isbedeli mayso mid kalena waa ku sheegayaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam nabi maxamed ayaa ergay nin baa ergay u soo diray Hirqal la oran jiray oo xukumi jiray Qudus oo Kristaana ergaygii baa u yimi way wada hadleen adigu markaa inuu message u diro qoraal buu damcay Ali ibn Abi Talib baa qorayay biir qoraalka dabeedna ergaygii oo fadhiya buu wuxuu yiri waxaad ku qortaa min Maxamed Rasuulullah ilaa Hirqal markaasa ninkii ergayga wuxuu yiri anigu rasuulnimada kuma aqoonsan dabeedna rasuulkii buu yiri alayhi salaatu wasalaam uu ka noqdo wuxuu yiri Ali ka tiro waxaad qortaa min Maxamed bin Abdullah bin Abd Muttalib Yuusuf waxaan ku sheegayaa rasuulkii risaalada samaawiga ee ku soo degtay waa wuxuu gartay waxaan heshiis lagu ahayn in dadka lagu qasbi karin ama dawlad ku sheeg ama qaran ku sheeg ama muqaddas ku sheeg waxa inaan heshiis ku ahayn ma jiro mana jiri doono marka waxaan sheekada ku keenay waxa weeye the last 33 years ama 3 ka sanadood waxa weeye heshiis lagu ma ahayn concept kan goonigoosodkuna basically wuxuu ku baysan yahay aragti reernimo beersha Sheekh Saxaaq baa fikirka qabta oo maslaxad u aragtay iyagoo wax ka tabanaya midnimadii Soomaaliya baa dareenaba iskeliyeen inay wax la wadaagi karaan qabaa'ilka kale gabadeedna dal gaar oo iyagu dominant ka yihiin oo majority ka yihiin oo inta kalena markaa u yihiin bahalkii hoos joogayaal conceptkaasay horta ku salaysanta hadii jeer waxay ku celceliyaan beesha dhexe rag badan wada waxaan ku iri beesha dhexe hadii Soomaalida beel dhexe leedahay anaga beesha dhexe ah waayo idigu daraf idinka daraf jooga anagu waxa weeye 18 gobol ee Soomaaliya waxa almost 9 kamid baanu deganna anagu duulaan kuma nihin maslaxadiina iyo idinka hadafkiina hadda rabtaan inaad go'daan anagu duulaan kuma nihin idina diidi mayno xuduudihiina ku ekaada qabaliga
waxa weeye iyaga macnihii objective-ka dhan ee ku salaysan xuduudaha haddii shar ku doodaan xuduudihii ingiriiska waxa weeye xuduuddan ay ku doodaan waxay yidhaahdaan OAU-dii baa sharciysay in xuduudihii isticmaalka sidoodii loo daayo ururka OAU-da la yidhaahdo waa Organization of African Union waxaa la sameeyey bishii 25 bishii December 1963 dowladihii sameeyey jamhuuriyaddii Soomaaliya baa ka mid ahayd 1964kii conflictkii ka dhacay Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdooda iyo Kenya iyo xuduudihii wadamadaas isku qabsadeen baa go'aankani ka soo baxay xuduud Soomaaliya dhexdeeda ah may ahayn iyada lafteeda waxa la yiraahdo dowladda Soomaaliya waxa may saxiixintaa waayo dhul baa inaga maqnaa oo dalal kale inaga haystay marka concept-kan xuduuddu macnihii inay sharciyad ku helaan weeye objective-ku laakiin xuduuddani xuduud sharciyada sideedaba ma aha aragtidan macnihii goosiguna aragti heshiis lagu yahay oo bulshada gobolada waqooyi wada degta heshiis ku tahay ma aha marka legally waxa weeye wax jiraya ma noqonayso waxa weeye anagu hadday iyagu damcaan inay gooni noqdaan oo macnihii dal gaar noqdaan haddii dowladda Soomaaliya anagu go'aankeeda taamalihiin laakiin garanti waxaanu bixinaynaa in dhulka iyaga lagaga duuli mana filayo in cidii intay weerar ku qaado Burco iyo Hargeysa iyo Berbera iyo galbeedka Sanaag inay ku khasbayso inay khasab kaga mid noqdaan Soomaaliya midda kale dowladdii military-ga ahayd oo dictatorship-ka ahayd waa hore tagtay nidaam Soomaalidu wax ku qaybsataa baa hadda jira hadduu doono waxyaabaha shortcomings ka jireen waxaan aaminsanahay inay waxay rabaan iyo sheerka ay leeyihiin ka heli karaan ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda hadday yase rabinna dhulkoodu deegaan weyn bay haystaan oo malaha 3 jibaar 4 jibaar jamhuuriyadda Djibouti ka weyn inay dhulkooda ku ekaadaan laakiin lama yaabo generation-kan dambe oo masalan wiilkii 20 jirka ama 10 jirka ahaa 1991kii oo maanta dhowr iyo 40 jir ama dhowr iyo 50 jir ah oo 30 sanadood la fiid gareynayay qaran baynu nahay jamhuuriyad baynu nahay kaasi la yaab ma leh laakiin nimanka politicians-ka ah oo siyaasiyiinta oo ragga waaweyna oo inta ummadan ku akhriyay waxa kan baan qabaaba eedda leh dadka shacabka waxaan ma leh iyaga laftoodii waxaan xasuustaa nin la oran jiray Joseph Goebbels oo naasi dowladdii Jarmalka dagaalkii labaad oo ahaa wasiirka propaganda baa wuxuu yiri propagandada waxa weeye 30% been ah baa waxa la raaciyaa 70% run ah si ay u qaato ka bacdina buu yiri marka koowaad iyo marka labaad markay kugu soo noqoto adigii waxaan diray waad garanaysaa inay tahay wixii aad adigu siidis laakiin marafraadka adiga belief gareeya marka hadda niman siyaasiyiin oo waaweyn oo odayaal oo halka ka hadla say ugu wadeen bay iyaga caqiideysteen wixii ay dadka u sheegayeen marka dhibca ka saajirtay aad u mahadsan